qiso kooban oo laga wariyo inay saxaabada xilligoodii dhacday oo ahayd Abu Dahdah nin la oran jiray qisadiisa nabigu markuu Madiina tagay calayhi salaatu wasalaam awal islaamkii ay ahayd ee la soo islaamayay baa waxa la sheegaa nin dadkii soo islaamay kamida iyo wiil adeeru yahay inay beeri ka dhaxaysay wiilkiiba marka wuxuu dareemay in adeerkiis iyo beertiisa isku banaanayd beerta dayrin la kala dhaxdhiga inay haboon tahay kullama wiilku marka darbiga sameeyo daydka dhis yiraahdo yaa waxa geed gudaha u soo galaya beertii wiilku lahaa geedkana adeerkiis baa iskala oo aabihi beerta ay wada dhaxleen ay wada lahaan jireen geedkiibu marka wiilkii wuxuu weydiistay adeerkii wuxuu ku yiri adeerow geedka isii waa uu u diiday waxa loo sheegay oo lagu la taliyay nabi maxamed buuna diidaynina calayhi salaatu wasalaam inta aad u tagto waxa tiraahdaa nabi allow geedka ii bari adeerka inuu isiiyo nabigu u tagay wiilkii nabiga marka u yeeray adeerkiis wuxuu ku yiri wiilka geedka sii wuxuu yiri seen mahay wuxuu yiri wiilka geedka sii wala ka nakhlatun fil janna jannada ilaahay agtiisa geeda laga siin doonaaye geedkan adduunka kuugu yaala iska bix markaasuu wadaadkii waxa uu diiday geedkii inuu bixiyo nin Abu Dahdah la ilaahay dhageysanayay yaa intuu kacay oo ishayn kari waayay ku yiri haddaan rasuulka ilaahay oo anigu beertayda weyn ee Madiina ku taala ee biyaha leh ee ceelasha leh ee deegaan kale ee guryaha leh haddaan ninkaas iyo oo aan geedka ka gato si aan wiilka u siiyo jannada geedahaad uga ballan qaaday anigu ma ku leeyahay ma ka helaya markaasuu yiri nacamha wala kan khal iyo geedo iyo timira iyo cinab iyo nicmaad ka heli beeraad ka heli jannada markaasuu tii isagoo dareemaya ku yiri ma taqaana beertayda markaasaa wuxuu yiri oo yaa Madiina joogan beertaada aqoon intuu ninkii geedka lahaa u yimid markaasaa wuxuu ku yiri geedka la sheegay ee nabiga u diiday igaga iibso aniga beertayda beertaas ninka Abu Dahdah la oran jiray waxa la sheegaa in reerkiisii dhexda ganaayo xilli xagaaho kulul bay ahayd oo beerta ay u dhaxaga bixeen oo ay ku nasanayeen carruurtiisu markaasaa beertii waxa loo doonay reerkii in laga soo saaro ayuu ninkii beerta lahaa u aaday si ninkii beerta laga gaday ee geedka lagaga iibsaday loogu wareejiyo beertii markaasuu intuu albaabka istaagay u qayliyay wuxuu ku yiri Umu Dahdah ay ka soo bax beerta markaasaa waxay ku tiri oo maxaan uga soo baxaayo markaasaa wuxuu ku yiri beerta waan iibinay ka soo bax markaasaa waxay tiri oo maal ka anfasan oo ka qaalisan beertaada miya maanta magaalada Madiinaad yaala markaasaa wuxuu yiri ilaahay iyo rasuulkan ka iibinay beerta iskaga soo bax markaasaa waxay tiri idan ilaahay iyo rasuulka hadaad ka iibso sadaqa u bixisay beerta waa aan ka soo bixi bay tilmaantay markaasaa waxa la xusuustaayo loo yahay carruurtii ninkaasi dhalay oo beertii ka guranaysa midho inta islaantii u dhawaaqday mid kamida oo timir gacanta ku watay intay ka qaaday tiri waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa siinay oo ilaahay dartii ula baxnay sadaqa dib u cunimayna inaga dhig sadaqada waxa lagu doonayay beerta caynkaas waxay ahayd janna lagu doonay sadaqadu jannay goysa sadaqadu waxay damisaa gaftay maxaa ku dhahdaayay dunuubta ayay maxaa ku dhahdaayay maydha naarta allay damisaa xijaab bay kaaga noqotaa sadaqadaadu maalinta aan harjirin ayaad harsataa sadaqadii aad la baxday naarta ayay xijaab sadaqadaadu kaaga noqotaa waxaan leenahay marka waxaan u baahanahay qalbiyaal naxariistamaan waxaan u baahanahay inaan isu naxariisano masiiba jirta masiibo qaran baa jirta masiibo aadaminimo jirta masiibo islaamnimo in looga gurbada ay haboon tahay baa jirta cid maanta caalamka joogto oo Soomaali wax ku falayso u soo gurmanaysa inayna jirin weyn ogna ka Soomaali inta isku tashato ilaahay ka cabsato waa dad islaama waa dad rixima waa dad qaraaba waa dad meel walba wada dhashay waa dad aan kala maarmin kooda waxay staay maanta kan waxaysanin hada weey hal isu gurmado hal isu naxariisto intaas oo risaalan arkayna oo aan maqlayna hebel baa wuxuu ku leeyahay baadiyaha wax laygaga bixin jiray oo baadihi maanta waxba de xoolana ma jiraan si aan yeela ma aqaan jaamacadda ma sii wadi karo iskoolka ma sii wadi karo magaalada ma sii joogi karo intaas oo xaafadood baa maanta carruur la keenaya awal hore ayna isarki jirin oo waxay ku noolaadaan waayay waxaan leenahay marka ilaahay baa wax kaafin karo ilaahay baa gacan weyne ilaahayna aan barino oo ilaahay aanu laabano oo banaanada aan isugu soo baxno oo aynu soonno oo aan madaalimta iyo xaq darrada iyo wixii dulmiye celinno oo aan ilaahay dariiqiisa sulxi ku gallo ilaahay intaan sulxi la gallo aan ballan qaadno inaynaan u noqon doonin waan xanuunsanay waxa weeye ilaahay wuxuu tilmaamay hadday tadarruci lahaayeen dhibaatada hayso waan ka dulqaadi lahayn buu ilaahay ku tilmaamay qoomamkii hore qaar kamida walaakin qasad qulubuhum
tahay soo kale acuudu billaahi ayaynan ku sifoobin in qulubteennu qallashay oo meel laynooga yimid aynan garanayn waxa inoo yimid waa dunuubtii gacmaheennan ku kasbanay wey waxaan u baahanahay rabbigeen inaan tooba keenno waxaan u baahanahay inaan isu naxariisanno waxaan u baahannahay inaan manhajka alla u laabanno waxaan u baahannahay cidda xumaanta wadda iyo ciddii gafaysa iyo ciddii waddanka xumaynaysa inaynu isku soo aragnaan u baahannahay ilaahay inaan wada barinaan u baahannahay ilaahay dhibaatada ha inaga dulqaado اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاجلا غير آجل يا رب العالمين كلمديدي intaasaan ku koobi lahaa qof walba muslimaho dhageystana inuu nashriyo ayaan ka rabnaa ilaaha idamkiis amar meehe dalab ihsaan iyo islaamnimo weeye halaysu naxariista baan leenahay ilaahay markaas inoo naxariisan waxaan ku gabagabayn irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa aw kama qala sallallahu alayhi wasallam